akhyaarta CID-da indhaha laydinku hayaa iska jira oo maaragtay wixii hore waa la iskaga yimid wasiirro dadka u doodaya jooga wasiirro haddii qalad ay jiraan qaladka tilmaamaya jira oo aan qarinayn oo la dhahayn qaridii sheekadii qaridii dhimashada iyo wixii markii ayaantii ha sheegin numberka anigu kaliya waxaan ka marqaati kacayaa waxaan joognay 2017 habeen baan waxaan soo toosnay subax ayadoo laba xildhibaan oo ka mid yahay wasiirkii cadaaladdu hadda tilka alayam nudaawiluha bayna an-naas way la yiri lagu soo eedeeyay xiriiraalinta qaranka oo u maleynay xiriiraalayaashii qaarkood halka inay fadhiyaan ay ku soo eedeeyeen laba xildhibaan khiyaano qaran inay galeen madaxweynihii ragaysa hayeen xilligaas jiray farmaajo ayaa one time subaxii ku soo waabarisay waxa isla habeenkii haddana la weeraray oo xiraalinta haddana ka marqaati kacday subaxii dambe ay shir jiraayad qabtay nin siyaasi oo isla mucaarada gurigiisa iyo dad lagu baabiyay marka runtii waxaan ka marqaati kacay anuguna markii xiriiraalyaha la magacaabay ma aan hadda inaan eedeynayo cid kale yani xiriiraalinta marka la siyaasadeeyo oo shaqadeedii laga weeciyo kalsoonida lagu qabaayo way yaraanaysaa aad bay u yaraanaysaa waan hadda cadaaladii Sheekh Bashiir uu ka hadlayay halkan xiriiraalintii dhammayd oo la rabay in iyadu ummadana u dhaxayso danta guudna ay mar walba garab taagnaato markii siyaasadihii jira ay ku milanto waxa dhacaya wixii la soo dhacayo kale marka runtii waa ku faraxsanahay in isbedel meeshaas uu ka yimid oo anigu comment baan bixiyay meediyaha markii la magacaabay Suleymaan saaxiibkeena waxaan iri yuusan ku dhicin daminkii dadkii ka horeeyay ku dhicin iska ilaaliyo waxaan u maleynayaa hadda dawladtii ka fudud oo wax badan siyaasadeyn doontii haddana inaa ku soo aadayo ay xoogaa arrintu ka khafiifi karto oo ilaahay ku ceeb asturay adigii akhyaartii kale oo gobolada ka yimid laftooda waa kayskaas kale uu qabsan karaa maalin waa laga bariisayn karaa maalin qadiyad siyaasadeed waa lagu marsiisan karaa laakiin taariikh waaraysay noqonaysaa institutionkana dhibaato iyo dhaawac aan laga soo kabsan karin gaarsiinaysa marka aad iyo aad baan runtii u bogaadinayaa ra'iisul wasaaruhu CID-da aad buu uga hadlay anuu mar walba de shacabku wasiir ay soo wacaan baana isbedelka hadda waa igu cusub yahay laakiin cabasho badan baa meeshaas ka taagan meeshaas ummaddu waa ku dhibanta waan rajaynayaa isbedelkaas ra'iisul wasaaruhu sheegay iyo CID-da meesha wax ka soo bilowdaan anu waxaan aaminsanahay dawladdu inay tahay adeege bulshada u adeegaya oo aan dhibayn oo adeega looga soo baahdana si fiican oo cadaalada in loo fidiyo ay tahay meeshaas marka xoogaa shacabku waa ku ciqaaban yahay waa ku dhiban yahay kolley warbixinada annagana soo gaaraysa waana hubinaynaa haddii wax iska bedeleen in la hubiyay tahay marka akhyaarta CID-da indhaha laydinku hayaa iska jira oo maaragtay wixii hore waa la iskaga yimid wasiirro dadka u doodaya jooga wasiirro haddii qalad ay jiraan qaladka tilmaamaya jira oo aan qarinayn oo la dhahayn qaridii sheekadii qaridii dhimashada iyo wixii markii ayaantii ha sheegin numberka meeshaan waa dhammaatay waa la sheegayaa numberka waa la sheegayaa marka gabahda garsoorka cadaaladda guud ahaanteed cycliskeeda ay soo martoo dhan shirkii shanaad ee garsoorkana waa ka qayb galnay shirkii shanaad ee xiriiraalintuna waa kana shirar kalena waa ka qayb gali doonaa meeshaas waxaa weeye aad ha la isaga jiro waana bogaadinayaa shaqada fiican ee xiriiraalintu hayso xiriiraalintana waxaan rajaynayaa inay soo kormeerto arrinta ugu dambaysa waxay tahay hadalkayga aan ku soo gunaanadayo
yaa qaabilsan saraha dhaadheer ee maalka dadka laga dhisto xeer ilaalinta qaabilsan mise guddiyo kale qaabilsan waxaa arkaysaa meeshaan taliye hebel baa iska leh meeshaan wasiir hebel baa leh meeshaan agaasime hebel baa leh sar dabaqoo dhaadheer oo la iska degan yahay xoolihii ummadda la iska guranayo iyadaasna xad in loo helay u baahanta waxyaalaha la raba in la eedeeyo nin siyaasi ku kacsan maahane waxaa la raba in la eedeeyo waxay tahay nin bajaaj ku socday oo sar dhisanaya markii dambe 2 sano 3 sano markuu joogo dhisanaya sarta ugu dheer magaalada ama baabuurta ugu fiican sita xagee ka keentay maalkan in la yiraahdo way tahay in la su'aalana way tahay marka xeer ilaalinta waxaan rajaynaynaa inay shaqooyinka siyaasiga inta ka soo leexato laga soo leexiyo inay khidmada iyo danta caamka iyo howlaheeda ay u soo wareegto runtii aad baan u bogaadinayaa waana isbeddelkuna waa muuqdaa garsoorka Soomaaliya iyo hay'adihiisuba kor bay u soo kaca kor buu u socdaa waxaana keenaya dad aqoon leh oo runtii xishoonaya oo maaragtay mas'uuliyad dareensan baa hadda gacanta ku haya waana jeenayna halka uga sii dhawaadaan oo quality-ga service kala bixinayana dadka sidii la sheegay online-ka in loo siiyo oo dadku hadda kala horumarka iyo maxaa loo gaarsiinayaa qof inuu yiraahdo saf dheer iga horumarsi وهدي هالكاس نمبر كوس كسر دقة يسوي مركو يماذا أنتم ميل تابس سيدا دون كبنجيا ذا يميلها سفف كلو كله immigration كله هذا الصف واحد يبغى كجرا ماله ولا حاجة رنتي سف عم بين دتكو قلان وحنا الله هرمريا دتك دبعتي سنة ويلك هوينك أوركله هوينك الماء وتا دتك عريانك دتكاس سيستم اللي سيستم بالوسمي ميل كستو سيرفيس كلو قدم محكمة ها هات أما بيرها CID ده ها هاتينا سيرفيس كنوع عاصو كراه وإسكفضت ولا سمين كرا وأنا لا كلا هرمرين كرا دتكو سيدا يأكل ملايين دتكو سي يأكل هريين ولو كلا ما ركتي سيستم شيء عن لو قرب سعون كريم ولا سمين كرا هذه عاد بأمها سنتين رنتي وحن رجينا يا شركة ورجينا يا دلكنا ده وسيدو الشيء قرصوركي موديل كيسي والوه شيء وحرجينا إن حير لالنا دولة قبلية ذا كيمد إيوه حير لالنتا جود دولة فدرال كا إني إسكو حرنان إيوه وذا شقين إيوه وحكلا برشة إيوه وحكلا كرسي أقونيت إني إنتبه أي سيسيان قرصور كأننا وحاول رجينا الحلال أنت إننا نقول ما رجينا الشركة هذه عاد ما حسنتي